awaamirtii guddigu gaaray go'aamadii guddigaa yidhi hadalni yidhina kaga tuman maayo waa ayide waxaan leeyahay ehelow dhibaatadu waxay leedahay meeshaan aynu joogno maanta waxba kuma yaalin dahab ka qodan mayno shidaal la ka baaran mayno wiilasheenniina waa ku dhammaadeen hooyooyin waa ku gablameen xaasaskiina waa ku niman beeleen wiilna waa ku garab beelay odayna waa ku gablamay dhibaatada intaa leeg waxaynu ku bedelanno haddeer garan mayno waxaan leeyahay waxaynu ku bedelanaynaa oo ku gadanaynaa maanta wixii ka dambeeya waa nabad halkan ka soo baxay waxay tahay waxa la yiraahdo geel diday waxa laga ma dhex qabto gogashii lagu xisaabtami lahaa uu kala gar heli lahaa la isugu sheegan lahaa wixii sababay dagaalkan waa dambaysaa cid kastoo odayaasha su'aashaas su'aali doonto waxaan rabaa inaan u sheego inay jawaabteedu intaas tahay gogashaas baa dambaysa tani waa jawigii gogol wada hadal iyo xisaabtan iyo heshiis lagu samayn lahaa labadan suugo isku jirta 500 mitir oo hadda annagu aan dhex taagannahay dhexdooda xisaab kama furmi karto inta kaleeto waxaan soo dhaweynaynaa go'aanada guddigu ay halkan ka soo jeediyeen maadaama ay labada beelood si isku mid ah ay ugu qoor dhiibteen waxa lagama maarmaan ah waxay soo jeediyeen hadday kharaar tahay iyo haddii ay macaan tahayba inaan aqbalna ayaa waxay tahay lagama maarmaan qodobadii guddigu noo soo jeediyey oo hore ay u sheegeen oo shanta ahaa xabad joojinta iyo waxa ka dhalanaya xabadoo la jabiyo ciidamada oo la kala qaado laba meelood Galdood iyo Bandiriley la kala geynayo ciidan la soo kala dhex dhigayo meeshii deegaamadii ay dhibaatadu ka dhacaysay iyo in dhaqdhaqaaqa la yareeyo dhulka dhibaatadu ay ka jirtay waxaan rabnaa inaan qodobadaas si toos ah odagii iga horreeyay asagoo laba beelood afkooda ku hadlayo uu yiri maadaama aanu horay u dhiibanay si wada jir ah u qoor dhiibanay waa aqbalnay anna waxaan leeyahay waa aqbalnay waxaan soo dhaweynayaa raggii hore intuu soo maray waxaan soo dhaweynayaa kow nabad ilaahu naga aqbal waxaan soo dhaweynayaa xabad joojin xabadaas ilaahay ha naga joojiyo xabadda in la joojiyo waa joojinay xabaddii xaqyada ka dhacda waa mid aanan raalli ka ahayna jiiraysa waa joojinay waxaan soo dhaweynaynaa ciidamada oo la kala qaado oo fariisimadooda la kala geeyo oo nasta waa soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa wada hadal xaqa oo miro dhala in ilaahay noo curiyo inana aan qaadano shishadeena inaan wax ka jeedin baa soo dhaweynaynaa waxaan qaadanaynaa guddigii 26 ahaa oon shalay u qoor dhiibanay oon raalliga ka ahayn qodobada ay noo soo saareen oo dadkaas walaalaha diriirahayay ay ka soo saareen oo dhexda iyada ay ka soo saareen dhammaan qodobadaas waan qaadanaynaa waan soo dhaweynaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa waxa la wuxuu guddigu yiri ayaan soo dhaweynaynaa waa taageeraynaa waan soo dhaweynaynaa dadka yaga iyo ehelka yagana waxaanu u sheegaynaa inaanu arintaa qaadanay saacadan laga bilaabo inaan qaadanay baan u sheegaynaa waxaan xil saaranay guddiga maslaxadda labada beelood ee Sacad iyo Lalkase guddi loo xulay ee cuqaal iyo culamaa diin iyo waxgarad iyo waayo arag intaba iskugu jira ayaan u xil saaranay waa u qoor dhiibanay waxaan u tala saaranay inay cadaalad ka sameeyaan dadka walaalaha ishaya go'aamada ay soo saareen nafsi waafiya oo filcadiyahan u qaadanaynaa waana u aqbalnay waana soo dhaweynaynaa waana fulinaynaa insha Allah aanu xagga Puntland hadaan u hadlo ballan qaadaynaa wixii guddigaas ay naga dalbadaan oo samaana inaan kala shaqeyno hadday amni tahay hadday tahay adeeg kale waxa laala wixii guddigaas
noo soo jeedshaan inaannu la soo dhowayno addimana ugu noqonno intii aad kasteen oo aad karteen iyo cadaaladii baad noo soo jeediseen oo horeyso xabad joojintii dhammaan waa in la qaadanay wax ka fiican oo maanta noo soo jeedin lahayd xabad joojin ma jiraan anoo haddii la ku hadlaya maamulka xabad joojinta ay soo jeediseen odayaashu ay soo jeediyeen una soo jeediyeen labada beelood oo Sacad iyo Leelkase iyo muslimiinta oo dhan dhammaan waa qaadanay waa la qabalnay nabadda tan maanta halkan loo taagan yahay ragga soo dhaweeyay oo labada qabiil ka soo jeedana waa u mahad celinayaa ilaahay baa mahad iska leh annaga doorka aan leenahay anoo ku hadlahayaa afka gobolka mudug iyo maamulkooda ilaa heer madaxweyne waxaan soo dhaweynaynaa erayaasha tan qiimaha iyo qaayaha leh oo ilaahay raalliga ka yahay oo meeshan laga soo jeediyey ayaan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa aqligiinna iyo farsamadiinna iyo wax alla waxaa meeshan ka soo jeediseen baan soo dhaweynaynaa waxaan fulinaynaa wax alla wixii aad nooga baahataan ayaan maamul ahaan afka maamulkan oo ku hadlaya ayaan soo dhaweynaynaa afka gobolkan oo ku hadlayaan soo dhaweynaynaa afka madaxweynayaasha oo wakiil aan aniga anoo gobolkii matalaya aan ka ahana waa soo dhaweynaynaa wax alla waxaan nooga baahatiin baan halkan ka ayidaynaa waxaan leeyahay amaalkiinna ilaahay baa gudi kara ilaahay amaalkiinna ha gudo meel fiican baa keenteen cidda qaadatay go'aankiinnana waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin waxaan u sheegayaa labada guddi oo deegaamada ka soo jeega meesha ku dagaalamay dadka meesha dhexdhexaadinta wadaa waa dad qariiba waa dadaan deegaankoodii joogin waa martiduna dhibaato gooniyay leedahay ha la iska ilaaliyo ishooda iyo warkooda iyo ha la qaato amarkoodana ha la qaato ha la iska ilaaliyo waa niman waa masaafir waxay ka yimaadeen deegaamadoodii waxayna u yimaadeen nabadda inay ka shaqeeyaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahay raalli ha idinka noqdo waxaa noo dirsataan ka maamul ahaan adinkaa idinkaga dambaynaa waana idinla fulinaynaa